دايبتك أنا برناو أخرج يا قنطة أنا قادناو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynayaa arday inaa kulligiina caafimaad qabtaan. Kusoo dhawaada ayaan warsho cusub. Warshadaani waxaan markaasi aan workshopkan waxaan markaasi aan kusoo qaadan doonaa ama maanta aan ku falanqeyn doonaa ama aan ku baran doonaa habka ugu wanaagsan oo isticmaal leeyahay warqadda imtixaanka. Hadda meeshan waxa yaalo warqadda su'aalaha ay ku qoran yihiin hal marka imtixaan gashid sida ama imtixaanka form 4 ka si qaas ahaan imtixaanka form 4 ka waxa lagu keen doonaa labadan warqad oo inkastoo warqadan lagu soo hormarin doono kadibna warqadan lagu keen doono marka habka ugu wanaagsan oo isticmaal leeyahay ayaan rabaa markaasi inaan kugu sharxo. Marka mowduucan kaliya ma quseeyo ardayda form 4 ka arday walba oo markaasi imtixaan inuu galo uu isticmaali karaa ama ashraxan uu dhageysan karaa. Hadhoodina waxay ka saaciday si wanaagsan inuu u fahmo habka imtixaanka loo galo looguna shaqeeyo. Hadhoodii qofka saxayo maadadiisa waxay u fududaanay si wanaagsan inuu u saxo oona aysan qalqal aysan ka gelin. Hadhoodii haddii fartaada aqastid ama waxa isku dhex yaacsiis waxa dhici karta darajooyin inaad ku haysid. Marka si aadan darajooyin aadan ku waanin sidoo kalena si hadhoodii ugu fududaato qofka imtixaanka ku saxayo oona darajada ugu haboon aana istaahisho uu ku siiyo ayaan rabaa markaasi inaan maanta aan halkaan aan idinkugu sharxo. Marka warshadeena waxaan u qaybin doonaa ilaa 3 qaybood. qaybta koowaad oo ah imtixaanka ka hor waxa inaad samaysid ay tahay kadibna marka imtixaanka aad gashid waxa aad samaysid inay tahay oo iyadan aan kugu sharxi doono warqadda imtixaanka iyo bookletkiisa ama buugyariisa. midda saddexaadna waxa waaye marka imtixaanka aad dhamaysid waxa ay tahay inaad samaysid. marka saddexdaasi waxyaabood ayaan rabnaa marka ama saddexdaasi qaybood inaan maanta warshadeen aan ku soo qaadano ama aan ku falanqeeno. marka aan ka bilaabo qaybta koowaad oo ah waxa ay tahay inaan sameeyo imtixaanka ka hor. ka soo qaad hadda waxaan ku jirnaa subaxda imtixaanka ayaa joogta hurdadii ayaa ka soo kacday. waxa ugu wanaagsan ama ugu horeeya aan laazim inaan kula taliyo ay tahay aan ugu wanaagsan doodino Allahna soo kugu kaalmeeyo in cibaadadiisa ka bilaabid maalintaasi oo ah salaada subax inaad jamaaca ku dukatid. midaas adoodi waxa ay ka kaalmeynaysaa in imtixaankaada Allah uu ku fududeeyo oo Allahna garabkaada uu galo. laakiin haddii maanta salaadii ay ka tagto jamaacana aadan ku dukanin isla waqtigii ama hal saacadood ama 7 aad soo kacday ama 7 iyo barka kadib la orod aad gashid nidaam la'aan ku noqonaya. hadda fursad ayaa helay marka jamaacada salaada aad ku dukatid hal saacadood ayaa helay in imtixaanka iska sii fiirisid in kadibna si fudud aad ku gashid. marka midaas ku dadaal in salaada jamaaca aad ku duktid. marka imtixaanka kaliya you can noqonin arintaas oo maalinta imtixaanka kaliya la noqonin in jamaaca ku duktid maalin walbana daa'im maalintana ka bilaw oo imtixaanka aad galaysid in salaada jamaaca ku dukatid kadibna isku day inaad duceysatid oo Allah soo adoodi imtixaanka oo kugu fududeeyo. ducadana ha iloobin ileen wax aad u wanaagsan waa aayada quraanka waxay adoonkeedu waxay weydiiso u sheeg inaan u dhawahay ujiibu dacwata daaci ida dacaan. marka Allah hadaa wax weydiisatid ama illa Allah hadaa markaasi u dhawaatid wuu ku ajiibaya waxa markaasi aad weydiisatid. marka yaqiin la imaaw midaas waan kula talinayaa. okay marka kadib ilaa waxaan ku jirnaa imtixaanka ka hor waxaan kula talinayaa waxa waaye in waxyaabahan hadda aan ku tirin doono inaadan laazim aadan ka soo tagin. waxa ugu horeeya waxa waaye inaad qalin qaadatid oo ah qalin buluug. badanaa waxa arkay ardayda marka qaarkood in qalin guduud ay ku qorayaan warqadda imtixaanka. midaasi laazim waa inaadan sameynin oo sharciyan ma wanaagsan ama ma saxsan in warqad guduud aad ku qortid buugaani ama buugarahan aan kadib aan ku sharxi doono. marka qalinkaada buluuga qaado marka qalinkana ha weynaado ama ha badnaado ama qalin badan oo qad badan ay ku jirto ha noqdo oo qalin asin dhan oo dhamaanayo ama oo ka go'ay ha qaadan. sida ugu wanaagsan aan kula talinayaa waxa in 2 qalin aad qaadato macnaha haduu mid uu qalin uu ka dhamaado mid kale ziyaada adoodi ismarkii saa ugu buuxsatid adoodi inaad tuugsatid ma ahan oo nin markaas wixiis u diyaarsan yahay inaad noqotid. haddii aad naftarkaada qalinkaada uu ku buuxsan yahay waxa dhici karto mid kale walaalkaada ah oo fasalka kula jiro in qalin uu u baahdo oo idin maxay noqonay marka taas marka Ilaahay ajar uu kugu qoraya marka qalinka si walaalkaada kaleenta haddii la aragtid in qalin la'aan uu yahay. marka sida ugu wanaagsan waxa waa inaadan qalinkaada aadan ka tagin ugu yaraan 2 qalin ama 3 qalin inaad qaadatid adoodiina سادودي يكون ناخذ باك اب ama receiver ahaan ama احتياطي او adeegsatid midda kale aan kula talinayo waxa waaye qalin oo correction ah ina isticmaashid correction waxa qalinkan hadii la khalad ay gashid oo kale qaladaadkaada oo kale qalinkan cadaanka oo kale u baahantahay khaladaadkaada markaasi ugu saxsaxid iyadana ha iloobin ugu badan $1 ama $0 waay marka isku day ina
qaadatid qalinkan aad uu kuu saacidaa khaladaadka badan oo ama qalinkan aad rurugays oo professional ma ahna ma wax qof arday oo mar walba wax tirtiraay sida ugu wanaagsan waa jirtaa qalad waa gali kartaa laakiin sida ugu wanaagsan in qalinkan ay isticmaashid ayaan kula talinayaa mid kale ugu wanaagsan oo laazim in aad ka tagtid aysan waxa waa roll numberkaada laazim waaye inaad qaadatid ilaan hadaa roll numberkaada aad qaadan waayso ama ID cardkaada waxaa dhici karto in imtixaanka markaasi aad seegto ama lagu gelin waayo ama lagu ogolaan waayo marka sida ugu wanaagsan aan kula talinayaa waxaa dhici karta bini aadam aad tahay way ka dhumi kartaa ama roll numberkaada uu ka dhumi karaa ama si wax una dhici kara ama guriga kusoo iloobi kartaa waxa aan kula talinayaa lacala hadaa mobile aad qaadanaysid in aad sawiratid marka ugu horeysa roll numberkaada aad heshid inaad sawiratid hadhow hadaa markaa badiil u baatid hadhow markii aad u tagayso wasaaradda ama sidaas si hadhowdii si fudud ay kugu bedelaan ama aad u heshid marka sida ugu wanaagsan kula talinayaa waa in sawir aad ka qaadatid ama qof walaalatiin ama si inuu sawir uu kaaga qaado uu ku haayo hadhowdiina haddii aad u baatidna kadib uu kuu soo diro midaas naftarkeedana waan kula talin lahay midda kale aan kula talinayaa waxa waaye horena casharo badan aan ugu sameeyaa jirto in ardayga sida ugu wanaagsan waxa waaye buugga le weyn inaad wadwadid ma ahan buugaagta dhan inaad saan wadwadid ma ahan waxa ugu wanaagsan waxa waaye inta casharada aad soo dhiganaysid kulli in buug walba ama aan dhahay chapter walba ama cutub walbo inaad ka samaystid mulakhas ama summary oo soo casharo badan aan kaga hadalnay oo hadaa ku laabatid channelkeeda kale inta YouTube-ka waxyaabo badan aan kaga hadalnaa jirto marka casharadaas si daawo iyo talooyin naftarkeeda aan ka dhiib arintaas iyadoo farsamada ugu wanaagsan ay tahay mnemonic scan oo waxyaabo ku xasuusinayo ilaan waqtiga imtixaanka ma ahan hadda iko buugi inaad saan u kala furtid oo muqarrarkan ka hadlaya buuga muqarrarka inaad kala furtid akhrisid waqtigaas ma wanaagsan sida ugu wanaagsan aan kula talinayaa waa in chapter walba aad ka samaysatid summary oo aanan hal page aanan ka badnayn oo kaliya hint ku xasuusnaa hint waxaan ka wadnaa wax oo ku bilaabayo waxaas oo number yaris ku bilaabayo ka soo qaad maanta aan dhahayn oo kale physics oo kale hadii marka laga hadlayo red orange iyo marka la joogo colorska oo invisible light ka muxuu yahay marka roy gbiv laga soo gaabay amaano red orange iyo green roy gbf PIV in la taarjina marka sidaas oo kale wax oo ku xasuusinaya casharadaada oo fudud oo adoodiin isla markaa daa fiirisid oo ku xasuusinaya sidaas aan kula talin macnaha book yar sameeyso ama note oo sidaan oo kale sameeyso aad ku qoraysid casharada dhan ama chapterska waxa qaadatay chapter walbana adoo isku day inaad ku soo koobi kartid hal page sidaas waa inaan kula talina marka buug yar oo noteskaada hor u qaado macnaha buug weyn isku xamaalin marka noteskaada la fiirsan hadhoodi check asiga markaasi kulli ka ogaan kartaa ama chapterska kulli isla saacada ku gaafar gareyn kartaa hadaaba hore wax u soo akhrisay laakiin hadaadan hore wax u soo akhrin way kugu adkaanay mar walba buugi asan ina u kala furtid oo waqtiga kugu qaadanay marka ma kula talinaya naftarkiisa marka hore u soo mulaqas gareyso ama hore u samari gareyso ama hore u soo koobo casharada ama chapter walba wax ka sameeyso hal warqad ka sameey chapter walba isku day qof mar haduu wax akhriyo uu ka sameyn karaa waa huwa ina ka sameyn kartid ilaa waaga aniga jaamacada dhiganayo iyo sidoo kale dugsi saraan dhigan jiray waa halka chapter waxa dhigad maraqood in afar chapter ina hal page oo A4 ayna isugu waa huwa adina sidaas ka daran ina sameyn kartid midda kale inta ugu muhiimsan iyadana waxa waay oo idan ku xusay tahay oo in fasalka u sii qaadatay imtixaanka hadii la calaamad maadooyin scientific ay gelisay sida xisaabta math iyo physics iyo chemistry in biology dii la xisaab ay ku jirto scientific hor u qaado waa laga roon yahay qof aanan imtixaan u socdo oo hadii koona tuugsi meesha ku galaya macnaheedu tuugsan u aqaana in weydiisiga iska tuugsi waa ilan ardayga tahay لازم واحد إنه يكون دمسترناد ووقتي ما أنا ناسيق دوميسد يقولوا وح يسود ديو كاسا يسود ديو ساس معناها مر والبو إنه خفك الديار ناخده تاسن كله تلين لاي وقت بدنا يوكايقلوا من إن هداش استحياء وقال هدا سؤون واحد مركو كو دمسترنين وفي فكرة عشر كي واحد عكرته ماشي إيه عشر كنا كيف فكرت وحكي فكرة سنتيفيك سيدا كوهل الليل لكن مرة زي سنتيفيك واحد إنه يكون ديار سين بابا كيف فكرة عشر كذا كليه كيف فكرة مرك مداسنا كله تلنا سو كل تلوين كل زيادة عندي واجرته إن oo imtixaanka aan ardayda aan kula taliyay marka linkii hoosan ku dhigaa sidoo kale uu ku soo muuqan doona casharka markaas aan kala hadlay thumbnailkiisa marka arimaas waxa waa arimaha oo aan rabo inaan ku xuso imtixaanka ka hor waxa ina sameeysid ay tahay marka waan kula talinaya marka ama waan filayaa ina qaadan doontid hadba marka warshada qaybteeda dhexe ayaan u gudbi doonaa oo ah habkan macnaha marka warqada imtixaanka waa lay keenay maxay tahay markaas inaan sameeyo
marka horta marka ugu horeyso waxaa dhici karto haddii lacala form 4 aad tahay labadan warqada lagu keen doonaa siba warqada lagu soo hormarin doono waxay noqon doontaa warqadan ay noqon doontaa warqada lagu soo hormarin doono marka hadda warqadan wax yar dib ayaan isaga dhigayaa tanaan ka bilaabaya inaan page-kan kaliya ku sharxo kadib waxaan u laaban doonaa warqadan aan u laabana horta page-kan aan ku sharxo habka ay tahay wax inaad samaysid macnaha haddii form 4 aad tahay fasalka 8 aad tahay kulli fikradaha inta aan kaaga sharxi doono isla fikradaas ay noqon doontaa fikrada aad ku tadbiiqin doontid marka buug walbo adiga fikrada si guud ahaan u qaado taasaan kula talinaa marka qalinka aan la soo baxo okay intaan dhigto okay fiir marka qaybta ugu horeysa waxa waay laba qaanad meeshan ku dhigan labadan qaanad ma kula talinay ama inaad taawatid macnaa nihaaya isku taabanin qaanadan iyo qaanadan adiga laguma talagelin in wax aad ku qortid waxa waay wax code markaas ay adeegsanayaan tiimka imtixaanaadka ama lajnada imtixaanaadka wasaaradda waxa ay sameynayaan waxay tahay in warqadan fiir wax way jarmid kartaa oo saani u jarmi majuujida wala jara marka doodii waxa loogu talgalay macalinka markaas saxayo si doodii cadaalad loo ilaaliyo inuusan magacaada uusan arkin macnaa qofku u saxayo inuusan garan karin kali kood waa doodii markii la isku nidaaminayo oo kale labada kood la isku fiirinayo macnaa xaashadani oo magacaada iyo dugsiga joogtid iyo waxa kulli aad ku dhigi doontid meel gooni ah la dhigaa ama macalinka marka uu saxayo kaliya waxa loo geen doonaa warqadii oo sidaan saan oo kale loo geen doonaa macallimiintu ku saxay warqadan saan ku heli doonaan oo koodka hadhow markii sida lagu fahmi doonaa magacaada waxa sida lagu fahmi doonaa koodkan inta ku dhigan iyo koodka inta ku dhigan isla ekaan doona hadhow mar kale magacaada way ogaan doonaan tiimka markaas natiijooyinka gilgilinayo systemka marka sida ugu wanaagsan meeshan waxba ku dhigin intan waxba ku dhigan hadhow si aadan lagaaga shakinin mar hadii hadhow waxa loo fahmaya in oo baaq ay tahay ama si in sharciga ku tumanoosid marka si uusan eed ama laablaabasho ama waxaas aysan kugu imaanin waxa ku dhigan intan waxa ku dhigan marka hoos aan sii socono inta waxa way ardayga magaciisa ku dhigaa magaciisa saddexan oo aniga ahaan hadda magaciisa Salman Maado waa family name waa marka Salman Maado kuma dhigay marka magaciisa rasmi inaan ku dhigo waa Salman Ibrahim Maxamed oo kale inaan ku dhigo waa Salman Ibrahim Maxamed aan ku dhigaa taasna isla ogaano ama mid kale xigta waxa way dugsiga ardayga uu dhigto marka su'aal meesha ka imaanaysa marka dugsiga ardayga uu dhigto dugsiga ardayga macnaha meesha imtixaanka aad ku galaysid miya ama meesha wax waaye aad ka dhigatay macnaha waxa ka wada fasalka form 4ka dugsiga aad ka dhigatay ayaa meeshan ku dhigay Axmed Gurey miya dugsiyan wax miya dugsi Ahmed Harbi miya dugsi Araa Ugaas miya Wiilwal miya iskoolku yahay markaasi halkan ku dhigay iskoolka form 4ka aad ka dhigatay meesha ku dhigay dugsiga ardayga marka taas si fiican ila ogo inta xarunta markaas imtixaanka aad ku galaysid waa si fiican marka inaad ogaato macnaha waxa dhici karta dugsigii iskoolkii aad ka soo dhigatay form 4ka inaad laga wareejiyo oo meel kale lagu dhigo macnaha waxa dhici karta in lagu geeyo gaheer oo dugsi jaamacad ummadin lagu geeyo dhici karto ama waxa dhici karto dugsiga tababarada gaheer in lagu geeyo dhici karto oo wax ku yaal Xamar Rajab ama waxa dhici karta in wax lagu geeyo Axmed Gurey ama iskuulada markaas dawladda ay leedahay ama dhame kulli macnaha ama Maxamuud Harbi iskuulku markaas noqdo in Amraaga Ugaas ama Isha Umar mid ku noqdo markaas in lagu geeyo dhici karta marka xarunta lagu geeyo oo adiga imtixaanka aad ku galaysid markaas aad fadhiisid kursiga aad ku fadhiisid xaruntaas magaceeda halkaan ku dhigay ama meeshan ku dhigay taas marka laazim inaad xasuusatid waa dhoodi waxaan su'aal isweydiinaysaa jirto oo maxaa waxaan dhan macluumaadkan u dhigaa waxa dhici karto lacala adii imtixaankaada uu ka lumo ama si meel khaladaad ay dhacdo hadhow si loo sii tixraaco loo ogaado in si meel lagu arko hadhow Maxamuud Harbi oo kale iskoolka saddex dhigatid Maxamuud Harbi arday magaciisaas oo kama jirto si lagu baaro hadhow marka hadhow waxay fudeedinayaan si walba mustaqbalku wax xun haduu dhaco hadhow in si fudud loo tixraaci karo warqadaada marka wax walba macluumaad hadda aan ku sheegay si wanaagsan oo far kala baxsan oo la hubo saas inaan ku dhigtid aan kula talin lahay mid xigta oo roll numberkaada roll numberka waxa ka wadnaa macnaha ardayga roll numberkiisa meeshan inuu ku dhigto waay oo macnaha ID card lagu siinayo ID card kan number ku dhigan numberada qaar kood waxa u dhaxeeya minus u dhaxeeya ama dash u dhaxeeya marka sida uu u dhigan yahay roll numberkaas RL kulli sida uu u dhigan yahay adoo waxba aadan ku dareen waxba aadan ka bedeleen sidaas oo dhig mid kalena hadii lacala school afcali waxa ku soo dhigatay
af carabi ahaan inaad ku dhigtid ma kula talinayo ileen dad qaarkood carabi inaysan fahmayn dhici karta ama mushrifka ama qofka markaas imtixaanaadkaada loo xil saaray hadduusan carabi fahmayn ama carabi si un qalad macna carabi midig ilaa saasa loo dhigaa ama af soomaaliga ama laatiinka waxaa loo dhigaa bidix ilaa saas haddii lacala qaladaad inay imaadaan dhici karta ma sida weyn aan kula talinayo waxaa markaa magacaada dhigaysid wax walba macluumaad halkan aad ku dhigaysid laazim waa ama sida ugu wanaagsan in af Soomaali ku dhigtid af Soomaali hadii Latin ina ku dhigtid taas af Soomaali isku mid waa oo ama Latin marka waan kula talinayaa madaas talo weyn iga tahay inaadan af carabi aadan halkan aadan adeegsanin ilaan qaladaadka ka imaan karo inta waxa lambarka fasalka okay lambarka fasalka maxaa laga wadaa marka in dugsiga ama waxaan ka wadaa dugsiga macnaha dugsiga ardayga markaan ku qoreen form 4 aan ahmaano marka inta lambarka fasalka form 4 kuma qoreysid oo waxaan ka wadaa xarunta markaasi aad joogtid lacala deeta xarunta dugsiga farsamada ama jaamacadda umada fasal walba number ku qoran marka numberka fasalkaasi ku dhigan laazim waayo numberkaasi fasalka ina meeshaas aad ku dhigtid oo numberka oo xarunta aad joogtid fasalkaada numberka uu sii yahay ku dhig meeshaas sidaas markaas aan kula talinayaa oo ma ahan ku dhigaysid form 4 ama fasalka 12 ha ku dhigin meeshaan ee waxa way xarunta aad joogtid numberka fasalkii uu yahay ma kugu cilna markale xarunta aad joogtid fasalka ku jirtid lambarkiisa ayaa halkan aan ku dhigay hadina isla faanarjana ama pointigani mid kale xigto waxa way maadada physics ma gale geography ma gale taariikh ma gale history ama Soomaali ma gale ama math ma gale marka maadada ay meesha ku dhigay intan waxa ku dhigaysid waxa way taariikhda markaas aad galaysid June miya May miya inta waxa ku dhigay taariikhdaas markaas 3 June ama 8 June ama 24 June ama 21 June 2026 mis 2024 ama 2025 wixii taa meeshaas ku dhigay inta waxa ka wadnaa tirada maalinta inta waxa way maalinta inta waxa way bisha inta waxaan dhigana marka waxaan ku dhigana waxay tahay sanadka way meesha sanadka way marka halaasi aan isla xasuusano aan isla ogaano marka hadda wijiga hore sidaas aan ku dhameeyna marka iska jir in wax qaladaad markaas aad ka gashid labada mid kale inta aan ka hal dardaarmay waxa way oo laazim ina ogaatid waxa way lambarka fasalka marka ku isdhaxyaaca dhici karo in marba daa ogaatid wasaaradda ama hadii soo dhajiso meesha xarunta aad ku galaysid sidoo kale fasalka aad ku galaysid hadii meesha uu kugu yaalo wasaaradda ay soo dhajiso ha sugin maalinta imtixaanka inaad gashid macnaha taas waan kaaga digaya maalinta imtixaanka maalintaas ina fasalkaada raadisid ama xaruntaada ina raadisid ha sameeynin hadhoodii aad imtixaanka ma focus gareyn ama imtixaanka ma diiradda saare ama fasal raadisa markaas galay hadhood isdhaxyaaca meesha ka awoorma marka sida ugu wanaagsan waxa waa 3 bari ka hor raadi in xaruntaada sidoo kale fasalka markaas aad ku sii galaysan magaca ku dhigan ka dhex raadi meesha hadhoodii siisan isdhaxyaac meesha uusan kugu imaanin marka mar fasalkaada waxa aad soo ogaatay tartiibka niyad degan gurigaada ku soo laabo casharadaada iska akhri laakiin maalinta koowaad hadii ku fasal raadina hadii ku wax raadina isdhaxyaaca awoorma marka in khalkhala kugu awoorma maskaxiyan ka hadloo maskaxiyan dib ma lahan waa raadin kartaa maalintaas laakiin am kula talinay oo orod ma galay fasalka ma orday meel aan wiligaada tagin fasal ama iskuul aan wiligaada tagin ma fasalka dhex raadinay marka ma kula talinay taas marka ina sameeyay mid kale inta waxa way oo aan mar walba ku celcelinay qalin guduud ama qalin casaan wiligaada warqadaani hadda aan ku sheegay ama buug yarahan marka jawaabaha ku dhigays ha adeegsanin adiga ma iska leeyahay ha adeegsan wiligaada qalin guduud ama qalin casaan mid kale aan kula talina waxa way meeshan waxa ku dhigan intan waxa ku dhigan macnaha koodkan adiga lagu talgelin teamka waxbar wasaaradda iska leh iyaga wax ku dhiganayaan oo adhoodina la isticmaalo doona adhoodii si aadan lagaaga shakinin ama buuq kale uusan kugu aqoonin marka hadda waxaan galeynaa qaybta kale inta oo ah warqadda imtixaanka ama warqadda su'aalaha taasaan galeynaa marka from the humble origins of Ardwick and Newton Heath as a ka faa'iideyso waqtigaaga firaaqada ah ee aad guriga joogto adigoo iska diiwaan gelinaya koorsooyinka afoogi aqoon cusub inaad kororsato kaliya waxaa ka xigto inaad gujiso afoogi kasoo dejiso afoogi app store-ka ama Google Play ana barna akhriski aqoonta aanu qaadano okay warqadda waa kana
aniga habkaan aan kugu habeeyey waa ilaa afarta nooc ay ku imaan karto ayaan halkaan markaas aan kugu soo dhigay ama habka ay noqon karaan imtixaankaada marka meelaha daashdaashka aan ku dhigay macnaha waxa waaye imtixaankaada su'aalihiisa waaye oo sida ay noqon karaan marka daashdaashka adiga iska suureyso define waves ha noqdo ama ethanol ama methanol si un waxa aad markaasi ama hexil ama waxa aad markaasi ku qoro ama ka suureyso marka ilaa afar baarta meesha ku qoran marka sida ugu horeysa marka warqada ay heshid waxa fiirsaa waqtiga markaasi lagu talgalay imtixaankan ku jirtid waxa waaye 2 hours badanaa imtixaanaadka oo wasaaradda waxa ay ku siinayaan waxa waaye 2 saac in imtixaankaas ku jirtid macnaha 2 saac kadib imtixaankaada waa laga qaadaya marka sida ugu wanaagsan waxaan kula talinayaa waxa waaye waqti imtixaanka uu bilaawanayo iyo waqtiga uu dhamaanayo kulli inay ku beeqaamisnaadaan ama aa ogaatid waay maadaama mobile lagu ogoleenin waxaan kula talinayaa marka saacadan oo kale inaad qaadatid oo badanaa way ku fududaanaa dhow mar walba waqtiga inaad la socotid hala uu yahay dhow si aadan iskugu dhaxyaacin hadii ku adan khalkhal uusan ku galin hadii ku waqti lagu daro ama si un macnaha meesha nidaam lagu wada heshiya jirto 2 saac ka badan in laga qaado doon marka 2 saac meesha ku qorantaa marka ina mar walba is ilaalisid waay 2 saacna ilaalisatid hadhoodina aadan isku dhaxyaacin marka 2 saac meesha ka fiirso hadba imtixaankaada wuxuu u yahay mid kale instruction markaasi lagu siinayo akhri si walba baartiyada markaas imtixaanku uu ka kooban yahay ayaa halkaan marka kugu dhignaan doono baart walbana natiijada aad ka helaysid waay ayaa meesha ku dhigan marka natiijada iyo waxaas waxa ay ka kaalmeynayaan hadhood waxa waa intaysan macallimiinta oo ku saxay intaysan ku xisaabin adaab is xisaabinaysid adaab ogaanaysid waxa ka maqan iyo waxa aad shaqeysay iyo waxa aadan shaqeysan isku dardarso taas marka ay ka kaalmeynay in markeska ama darajooyinka meesha in lagu soo dhigo marka taasna ogow waxa dhigi karta warqad inaysan saan aysan ku noqon laakiin sida ugu badan imtixaano badan aan fiirfiiriyay oo badan imtixaanaadka sidaan oo kale ay wasaaradda u soo habaysaa haddii lacala uu isbedel dhacay hadda isbedel yariis inuu dhici karto laakiin badanaa imtixaanka sidaan uu noqona marka ani hadda afarta baarti ee badanaa oo ku imaato marha badanaa laakiin marha kooda waxa dhici karta 2 baarti inuu ku imaado laakiin afarta baarti ay ku imaan karto ayaan halkaan markaasi aan kugu soo dhigay habka ugu wanaagsan aa ugu shaqeyn kartid ayaan rabaa inaan kugu sharxo halkaan marka baarti koowaad waxa waaye fiil macnaha buuxi meelaha banaan ayaa lagu dhihi karaa oo samee marka lacala ka soo qaad aan waxaan dhahay marka 10 marks oo kala ku helay mid kale waxa waaye match garee oo ah midka isku eg oo 2 column oo kale in lagu siiyo waan ku sharxi doonaa mid kale waxa waaye mid saxsan markaasi dooro mid kale afraad waxa waaye structure in lagu siiyo oo su'aalo oo chapters markaasi laga soo bixi chapter walba 2 su'aal in laga soo bixi ama chapter gooni ah 3 chapter in la doorto 3 chapterna 2 su'aal ama 3 su'aal ama hal su'aal in laga soo dhax bixi taas lagu dhigi karaa marka taas muhiimadeeda ama wax ugu weyn waxa laga wada waxa waaye inaad ka jawaabtid answer ayaa laga wadaa marka mid koowaad ama party koowaad aan ku tusiyo habka markaasi aa ugu shaqeynaysid ee sida ay tahay markaasi ina ugu shaqeysid buuga waa kana intuu iyala party koowaad sidaan aan u fiirinaya horta midda waxa ugu weyn aan kula talinaya waxa marka koowaad waxa iska hubisaa hoos fiiri beejishka markaasi ay ka kooban tahay imtixaankaada ama uu ka kooban yahay imtixaanka inta hadda waxa noogu dhigan hadda meesha aan joogo waxa waaye page 1 aan joogaa marka page 1 aan kugu dhignaan doona halkaan haye page 1 meeqa page markaas uu ka kooban yahay imtixaanka halaha page uu ka kooban yahay inta ka arkay marka hadda ana wuxuu ka kooban yahay 2 page waay haddana meesha aan joogo waxa waaye page 1 aan joogaa taas marka لازم waxa waaye ina maskaxdaada aad gelisid haye haddana mid labaad markaan tago ma aqaano hada si fiican markaas oo arkaysid xanshadan kor aan u qaado ala kaamirada si fiican loo arko ma arkaya waa kana kaamirada si fiican loo arkiyo rajayna kan waxa waaye page ka labaad hadda aan joogaa wuxuu ka kooban yahay 2 page marka badanaa marka imtixaan aad gelaysa arimahaas iska xaqiiji meeqa warqada meesha ku taal in bini aadan waxa dhici karto in dadka warqadaha soo daawacay ama macallimiinta sameyn doon warqadaha isku dhajin doon iska bini aadan waxa dhici karta warqad inay ka ilowaan ama warqad in hoos marto ama si un inuu isdhaxyaac dhaco marka aad iska hubi page koowaad tirso ilaa meeqa page ka koonta 2 page okay waa kana 2 page waa idan yihiin ay su'aalaha kulli waa idan yihiin meeshan maxaa lagu sheegay instruction ma ku qornay 4 baarti ku qornay 4 baarti ma idan tahay waa idan tahay taas ka bilow intaadan isla markii su'aalaha aadan ka jawaabin midaas iska hubi hadhow
hadhoodiisuusan wax aadan u iloobin ama isdhexyaac aysan u dhicin badanaa ardayda qaarkood way ku dhacdaa oo isdhexyaaca dhacay ama warqadihiya wax ka dhimnaanaya ama marka qaarkood waxaa dhici karto inkastoo badanaa aysan dhicin laakiin marka qaarkood inay dhacda dhici karto warqadihi inuu wax ka dhimnaado ama arday inuusan bala soconin warqad kale inay jirto ama si wax meesha qaladaad uu ka dhaco marka arrintaas marka kuwaad iska hubi baarta walbana aqri horta kulli su'aalaha kulli aqri سؤال والبا سفعان وآخر سيجا آخري هيدن سؤال لواد آخري سؤال سدحد آخري هي أدن سؤال أفراد أما عنده بارتي أفراد آخري كده ده مكان سؤال أو تسيد أونك سأقول لنا حواي أنت هذا أنت أوجو جواب سؤال والبو قابك إتهاي أما هنت أهان واحد مركز يكبلامنس أما هذه قاعدة واحد كوسو حاسوسنا أما في ده هي velocity محو هاي x ده displacement اللي هو قوي t أو كله wax uu ka bilaawanayo meesha ku dhigay ay column-kan ay midaan a iyo b ila saxsan ay inta daa'ira waxa ka wadnaa correct answer muxuu yahay a y saas ila tahay b saas horta marka kuwaad inta ku xale ama dii lacala warqada ay tahay laba page oo isku dhagan oo macnaha page-kan iyo page-kan isku dhigeen meel kale aad ku shaqeysa daawasid waxa ku shaqeyn kartaa waxba meel walba firaaqa u aragtid inta ku shaqeyn kartaa inta ku shaqeyn kartaa inta ku shaqeyn kartaa meel walba ku shaqeyn kartaa hada fiiri meeshan hada ku laabatid ama bog imtixaanka ama bogaani meelahana ku shaqeysan kartaa inta ku shaqeyn kartaa adoodina qalada saari adoo si aan loo maleyn macnaha mar walba qalad saar ama raf waay wax un note ku qor raf inay tahay wax un ku qor adoo si macalinka ku saxay uu ogaado in waxaada ay tahay wax saxsan intana midaan meeshan waxa ku qorin meeshan ma kula talinayo ama laazim ina wax aadan ku qorin waay midaasna iska fiiri okay hada marka habka ugu shaqeynaysa su'aal walbo aan ogaano su'aasha kuwaad lacala hadii tahay fiil ama meelaha banaan buux oo kale inta qoraal ku dhignaanay intan meelaha firaaq noqonaysa dana qoraal meeshan ku dhignaan doona ama su'aasha ku dhignaan doona sidee aan sameeyna waxa ugu hore waxa way big markaas aan u furto ama buugyaraha markaas sidaan aan u furto sidaan aan yeeshana fiir meeshan si fiican ila soco inta waxa way numberka su'aashan ku dhigaa inta waxaan ku dhigaa jawaabtan ku dhigaa jawaabta su'aasha qaybta macna fiir column u dhaximo xariiqina u dhaxayso xariiqanta waxa inta numberka su'aasha waxa way su'aasha 1 way su'aashan su'aal 2 way laakiin inta ka tirsan tahay part ka tirsan tahay part 1 ka tirsan tahay ina isla ogaano arintaas waa kugu cilnaa part 1 su'aashiis kuwa su'aashiis 2 marka inta waxaan ku dhignaa marka waxaan dhigi doonaa part 1 oo ah fiil okay fiil aan joognaa hada af carabi hadii akmil al firaq al atiya bima yunasib saasa lagu dhigi doonaa marka carabigiisa kulli meesha waan ku soo qoray insha Allah zoomna kuugu sameyn doonaa saa ogaatid marka fiir marka hada waa kana part 1 waa dhigtay maxaa su'aasha koowaad waa intaan ku dhigana su'aasha koowaad وهذه مركز سؤال كواد حد يكون مسؤول جورنا لأن وقتها بدنا يوصل كقصارن بس واحد مركز كوهبون كل ماشي محاول ماشي في راقد محكو كوهبون واحد سؤال جوابت كوهبون أنت أكو دقيقة حد يقول لك هذا سوق جورس الدنيا وحين أنت كيل أنت أكو سوق جورس معناه وقتها كقصارة ماشي الله بس هاي ستا قرمي فكرة مركز أكلها لابني وحي أصور دكتي مركز وقتها إسك قصارن هاي مدك لسد مدك لواد هذا إنسان أكو دقيقة لعل اللواد وكسوة أما ولي ما حسوس بس لواد سنة وعلى سنة هذا تنسد هذا وبوده هاي سد هذا دن أنت أكو دقيقة وحي مركز أو مناسب كوا ما جوابته وأردت إني صحته أفراد ساس هذا هذا سو حسوستي إن لواد وأكو دقيقة كرتا مدك الأن كلها تلنا حوا هذا سؤال هذا كلبر هذا كسيست معناه كلبر هذا كسيست إن دكتورون أدود هذا سأدود النتيجة دي كلبر أو يشد لكن وحي لنا كتجا معناها كتجن وهذا سؤال دي وح هذه سؤال جوابت ده هسد وح أكده إنها كل دكتور معناه وح فراقه هسمين معناها دذلك صوب شيء معلمين حد ريمان إن أسكودي ماشي أوجر لكن وحي فراقان كتجا ده معناه وحلو فما إن هذا نهين قف وح سو أقري مركز أسكودي جوابت مركز أو أركيسد أما كوهبون مركز إن هل كان أكو دكتور لعله وحنا كويش ده ذكرته اوكي ان بارتي كو اساسا كل مين ادنا بارتي لواد حبكه العالم ماجن هدي مش كوغو اماتو اما ان اف عربي waxa way انسل العباره في قائمه الف بما يناسبها في قائمه ب معناها مشان في جايز لبا كولوم نو تاalo كولوم A iyo كولوم B inta waxa dhigto jawaabta كولوم inta inay kugu dhiganta inta su'aasha lagu weydiiyay inay tahay marka sidee aan u xalina inta wax ku dhigana marka iyadana بارتي 2 hoosteeda ku dhigana inta waa ka dhamaadmo fiil hay بارتي 2 inta aan ku dhigana بارتي 2 muxuna margin macnaha wuxuu isku eg markaas ina margin aan sameeyo marka qaybtan sida ugu wanaagsan aan kula talinayo waxa waa ina soo wada dhigtid waay macnaha fiir column A column 1 waa kana waa soo dhiginay inta jawaabta ku haboon hadii lacala inta ay taalo waxa dhigto jawaabta in inta ku jirto oo ah sidaan ay yeeli kartaa hadii lacala warqadan aan qaadanaysa lacala ka soo qaad column kan ee jawaabta saxsan ee ku jirto iyo midda ugu dambaysa ee afraad ay isku ekaada marka
markaa soo dhigitid kan afraad intaa ku soo dhigani haye labo iyo waxaa isku ekaadeen midka koowaad isku ekaaday haye laban dhigana inta ku qorana midka kale la ekaaday oo jawaabta kula saxsanaaday oo munaasibka ku ah oo columnka kale inta ku jiro ama qaybta kale ee b ku jiro inta ku dhigani haye midda saddexaad haye saddex iyo waxaa kula ekaaday inta haye saddex waan soo dhigana jawaabta markaas ila ekaatay sidoo kale intana midka munaasibka ah columnka b jiro ayaa inta ku dhigana marka hadhowdi marka sidaas wanaagsan ayay ii noqonaya okay hadina isla fahanaa filaa qaybta matchingka sidaan u xalin lahayo okay hadina isla fiirino qaybta kale inta oo ah part 3 inta waxaan ku dhiganaa marka part 3 marka aad waxa dhici karto oo xasuusataa oo laazim ila fahanted ay tahay kulli baartiyada kulli inaysan hal page aysan ku deeqina dhici karto marka sida ugu wanaagsan waxa marka page badan meeshan ku yaal ilaa ku dhawaad waxa buugaada ama buugira uu ka koonaan doono waxa ilaa 8 page waa 8daas page isticmaal midda ama su'aasha markaas uu aragtid inaadan ka seenin ama xal kaaga baahan ka bood oo ah laakiin calaamayso oo ah lacal ka soo qaad su'aashani koow oo kale waan ka soo u soo laabana waan ka boodaa macna page kale ku xig ah markaas aan aada waxaan u boodaa marka su'aasha labaadan u boodaa oo jidamaan hadda maxaan joognaa marka part 3 aan joognaa waxaan u booday part su'aashiisa labaad oo ah part 3 su'aashiisa labaadan u booday intaan ku dhigana marka su'aasha labaad waa kana waxaan maroonaa juice macna juice waxaan qonaa dooro midka munaasibka ah macnaha correct macnaha lagu siinayaa inta su'aala lagu siinayaa marka su'aashan waxa lagu dhahaa a miya mis b y ama c y ama d midkee marka ay kula tahay midka saxsan ama answerka oo saxsan midkee ah marka lacal hadii d aysan ay tahay maxaan sameeynaa marka waxaan taabana marka lacal ka soo qaad hadda labaan u boodamo laba waxaan ayadana dooranaa d aan dooranaa ka soo qaada ka wadaya bas waxa qoranay d ah qoranay hay midda koowaad hadii lacal saddex ay meesha ay ku taal saddexna hadii kula tahay c aan inta ku dhigana hay afar hadii ku tahay b inta ku dhigana hadii su'aasha shanaad hadii meesha ay taal shan hadii lacal ay kula tahay a asaan u dhigna macnaha ma u baahnid mar labaad inaad soo dhigtid in su'aalahani iyo jawaabihiisa su'aalaha meesha kugu dhigan mar kale inaad soo guurisid ma u baahnid habkana u sameyn kartaa marba hadii meesha ay kugu imaatay choose the correct answer macnaha inaad dooratid correct answer ka ita ama circle geli ama waxa lagu dhigi karaa circle geli lagu dhigi karaa ama juice lagu dhigi karaa labadaas bay kugu imaan kartaa marka فهم هذه أفعال وإيتها وحواي ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة ساسي كوجو إيمانه لازم مركا أسلو جانو أي بدي كلامته نعم بارت 4 وضم بحواي بدنا نحاول نريدونا problems كمان كرتا أما واحد define جريسد أما واحد explain جريسد أما واحد discussing إن مركز أسميها مناقشة كسميسد ساسو أفعال وأهان وحواي أجيب عن جميع الأسئلة الآتية هذه of English ايتان waxa answer all the following questions lagu dhigi karaa lacal structure questions da meesha ka aragteen waxa way lacal meesha di chapters badan aqaanaysa 7 chapter ay tahay waxa dhici karto 3 chapter oo kale in laga soo qaato imtixaanka lagu soo darsado saddexdaas chapterna mid walba in laba su'aal ama saddex su'aal ama afar su'aal laga keeno ama waxa kale laakiin si guud ahaan waxa laga wadaa ina answer all the following questions ina ka jawaabto su'aalahaas kaliya sidaas si guud ahaan laga wadaa marka midda oo ina fahanted ay tahay answer laga wadaa marka structure marka lagu dhahay isku dhaxyaan answer laga wadaa ka jawaab laga wadaa hadii problem taana solve laga wadaa macna solve gray marka iidan maxaa sameeyna marka inta ku dhigana iidan part 4 answer wa okay asla fiina marka su'aasha kuwaad waa kana intaan ku dhigana waa ka jawaabay hay su'aasha labaad ilaa inta macna fiir waa deeqsinaya ilaa fartaada kala bixi oo kugu celcelinaa ana badanaa dhibaan ku qaba ardayda markay ay tafartooda isku dhex darsan yihiin waxa dhici karta mararkood wixii asomaraha u saxsan ina ka qaladid ila aad wixii faham waas waxa sameynaysa mataqaanid wixii isku dhex yaacay marka fartaada ina kala bixisid waan kula talinaa sida ugu wanaagsan u kala bixi farta oo ha isku dhex yaacsiinin ilan intaas ku manaan ardayda la saxooya adiga kaligaad ma lagu mashquuli karo ila inkastoo xaq u leedahay laakiin hadii fartaada kala bixin waas ada isdiishi waay marka ama ada isiyashi waay fartaada marka laazim ina kala bixisid waan kula talinayaa marka ay su'aasha labaad iyadana waa ka shaqeynaa su'aasha saddexaad waan ka suway maxaa sameynaa waan ka booda su'aasha afraad markaas aan u booda hay su'aasha shanaad hadan su'aasha shanaad inta ku qorana lixaad saasan aan u wada marka aan ugu shaqeynaya marka sidaasan marka aan yeelina marka waxa ugu wanaagsan markaas aan kula talinayo waxa waay
warqadda hore ha ka dhiibin ama ha boobsiinin macnaa marka waxaad akhrisatid ama waxaad qoratid isma warqadda ha dhiibin waqti lacalada waqti badan aa haysatid ku laabo hadan mar kale wixii akhri part 1 si fiican marka lagu arko waxaa dhici karto in fikrad kale ay kugu soo dhacdo ama aa aragtid wixii inuu wax qalad aa dhigtay aa dhici karto in markaas aad saxmatid ama waxaa dhici karto meel aa ka tagtay mar kale inaa kula ardayda qaarkood waxa ku dhacaya waxay tahay meel ay ka tageen u soo laab ay dhaheen ay dhiibayaan kadib markuu baxo oo wuxuu soo xasuusanaa ay meeshii wax ku buuxa kadib fasalku imaana ay dhib mar hadaa fasalka ka baxid warqadaani aad dhiibtid kalaabasho ma jirto sida rasmiga ama sharciga markaas u yaala imtixaanka marka isku day intaadan kursiga aadan ka kicin waxaad bilow ilaa dhamaad magacaada hubi meesha joogtid kulli iska hubi su'aalaha waxa dhigatay kulli iska fiir hadii ku saxsan yihiin hadan mar kale iska fiir maxaa degdeg ku geey hadii aadan meesha ka kac lagu dheheen marka ma ahan dugsi sare aad dhiganaysid oo kale ma ahan meeshan imtixaan dawladda la dhahaa ama imtixaanada kale imtixaan walba isku mid waay laakiin waa kala culus yihiin ama waa kala adag yihiin kumanaan arday aad tartamoosin kumanaan arday oo gobolada dhan dalka aad tartamoosin marka wax qaladaad yaa lagu qabsanin oo laazim inaa iska fiirisid ay tahay oo aan kula talinaya marka hadda qaybtii labaad saan ugu dhamaatay qaybta saddexaad ayaan hadda u gudbeynaa oo waxa ay tahay markaasi oo aan kula talinayo marka imtixaanka aad ka soo baxdid inaad sameysid ay tahay waxa ugu horeeya aan kula talinayo waxa waa marka imtixaanka aad soo dhameysay warqadda aad dhiibtid meel ha istaagin orod gurigaada aad macnaa waxaan ka wadaa meel inaad istaagtid saaxiibka maxaa soo qortay sidee waaye sidee ugu shaqaysay tan maxaa yeeshay tan ha dhihin isla marka gurigaada u orod nadhowdii waxay saameyn doontaa imtixaan kale kugu soo socdo ay tanaa qalday kan tashwiisha kugu furaa beri imtixaan kale laga rabaa inaa akhrisid imtixaan kale beri la rabaa inaa gashid ka waran haddii imtixaankii hadda aad soo dhaafto warqad aadan wax ka bedeli karin oo aad dhiibtid hadda iyo kuwadan inaa isku mashquulaysid ka waran marka mid aan weyn aan kula talina xabaa orod marka imtixaanka soo baxaad gurigaada aad casharkaada dhig hadda tiimkaada hadda asxaabta markaas waxa la akhrisanaysa haddii kugu soo qadqaadan naga xira dheh marka isbuucan aan ka dhamaan imtixaanaadkan kadib aan ka wada sheekeysan doonaa dheh marka waan kula talinaya midaasi inaadan markaasi aadan ku laabanin ama aadan markaasi ka doodin waxa markaasi soo dhaaftay imtixaan soo dhaaftay ka gudub hadda waxaan ku dhamaa saaxiibada la sheekeysanin orod guriga markaa tagtidne buuggii oo imtixaanka maalintaas aad soo gashay hadduu physics ama math hadduu yahay ha ku laabanin macnaha meel iska dhig mawduucaas ama imtixaankaas waa kasoo gudubtay imtixaanka kale xiga hadduu biology yahay hadduu yahay tarbiya haddii tahay carabi iyada u gurub inaa akhrisid macnaha haddii ku marjacaas inaa ku laabatid ama buuggaas inaa ku laabatid ha furfurin ha fiirinin macnaha waa kasoo gudubtay wax weyn aa u socon waxaa waaye saameynay kugu yeelinay ama dhoodii niyad jabaa kugu abuurmaya ilan mana loo baahno niyad jabkaas oo kugu abuurmo hadhowdii markaa imtixaanka aad ka dhamaatid isbuuc khamiis haddii la taga ama markaasi tag u fiirso ilan hadda horeen waa kula taliyay markaa imtixaanka aad ku jirtid darajooyinka soo heshay kulli waa soo xisaabsatay ilan halkaanan kugu sheegay inay kugu qoran yihiin qayb walba darajooyin kugu qoran tan 10 marks kugu qoran tan 20 marks kugu qoran tan 20 marks kugu qoran inta waxa kugu qoran 50 marks koodii baad isku soo dardarsatay waa taqaana waxa keentay macnaha inta waxa ogtaa ina 5 ka heshay inta waxa ogtaa ina 10 ka heshay saan waxa ku haysata 15 ku haysata inta waxa keentay 5 ka keentay saan waxa ku haysata 20 ku haysata sidaas u xisaabsatay haddii ku maadana buug ku laabanay hadda ku maadana fiirinay macnaha waqtiga iska dhameenin ha isniyad jibinin imtixaano badan kugu soo socdo imtixaanadaas xoog saar midaas aadan kugu la talinaya sidoo kale waxa jira mowduuc oo iyadana aan ka sameeyay ama talooyin aan ka dhiibtay oo sida imtixaankaas ugu diyaarin leedahay sida ay tahay markii imtixaanka waxa ay tahay inaad sameysid oo janaalkeeda oo YouTube-ka Salman Mado ku laabo ama hoos description-ka ama qaybta hoos faalada ayaan ku dhigayaa si aad ziyaado markaasi u heshid oo imtixaankaada ka kaameynay ardaydeena kulligiin waxa idin rajeynayaa guul iyo Allah markaasi inuu idin fudeediyo mid kalena waxaan waa iska imtixaan adduunyo waay oo marka ma ahan imtixaanka aakhiro midaan hadaa dhacdida ama hadii oo su'aal ka su'aasada insha Allah تعويضك waa heli kartaa ama waqti kale aad تعويدin kartid jirto ama iska soo dhisi kartid marka iska dhigin adduunyada dhan in imtixaankan kaliya ay tahay oo hadii mar aad ku dhacdayna bis waa mustaqbalka inuu saas ku soo gabagabooy marka taas maskaxdaada ha gelinin wax walba waxay heli kartaa inta adduunyada aad joogtid badiil la heli karaa wax walba
بديلكيس waa la heli karaa adduunyadan laakiin mar aakhir haddaa tagtid imtixaanka aakhir haddaa ku guuldareystid midkaasaan badiil laheene marka aad micnaha isaga ilaali midka aakhiro inaa ku dhacdid midkaan badiil oo heli doonta insha allah ardaydan harjana in warshadaan aad ugu faa'iideysateen in idin tartay imtixaankiina idinka tartay ama idinka caawintay tan iyo warsho mid lamid aan ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa guul allah inuu imtixaanaadkiina kulli idin fududeeyo allahna ku xirnaada إن شاء الله قول أيضا رجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذن لهانو أشركينا كأتكانو أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو اللهم علمكينا كار الله كار آخرياتك الله كار إنك شبهه هيليو الله كار قالونا أبنايا الله كار أرضيا يا قنتو واسدي إليس واسدا رورتيو أكتو وبركي أرضيا يا قنتو واسدي إليس واسدا رورتيو أكتو وبركي إرما وين كله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي إرما وين كله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي الله معلمكينا كار الله كار آخرياتك الله كار إنك شبهه هيليو الله كار قالونا أبا بنايا